illallah, 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 sallallahu ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولليال كسو دوادا برنامجك أنو مقعدرني arrimaha islaamka barnaamijkaas oo ka bixi doona tv-ga caalamiga ah oo la magac baxay afro t v waxaa insha allahu tacaala maqli doontaan barnaamijkan oo taxano ah waxaanu maantay insha allahu tacaala barnaamijkan ku bilaabi doonaa arrimo la xiriira arrimaha qoyska ama axkaamta loo yaqaano axkaamu usra waxaanu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala xalqadii koowaad ama fadhiga koowaad aan kaga hadli doonaa azawaaj ama waxa loo yaqaano guurka ama nikaaxa loo yaqaano saan ognahay nikaaxu ama guurku waa allah subxaanahu wa tacaala wado uu jeexay una jeexay ibni aadamku inuu kaga duwanaado xayawaanka intiisa kale ilaahi subxaanahu wa tacaala baa wuxuu leeyahay qur-aankiisa yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untha wardadu waxaa idinka abuurnay idinka dhignay dhadig iyo labba idinka dhignay wuxuu alla subxaanahu wa tacaala meel kale tilmaamayaa soo arrinka ku caddaynaya yaa ayuha الnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaala kahiira wanisaءa wuxuu alla subxaanaه wa tacala leeyahay dadka markuu la hadlayay dhammaantood ilaahay subxaanaه wa tacala ka cabsada allihii idinka abuuray min nafsi waaxida hal naf idinka soo abuuray waa nabiy llaahi aadam ama abuna aadam kabacdi alla subxana wa tacala wuxuu yihi wakhalaqa minha zawjaha nabiyullaahi aadam markii la abuuray kabacdi baa isaga waxaa laga abuuray xaaskiisii wabaha minhuma rijaala kahiira wanisaa kabacdi ilahi subxaana wa tacala wuxuu fidiyey rag iyo dumar buu fidiyey oo midba mid kale sii dhalay saas ayaa lagu tarmay saasuna guurka ku yimi marka guurku waxay ka mid tahay waxyaala ilahi subxaana wa tacaala u doortay ibni aadamka in la yimaadaan annagoo ka hadli doona axkaamta uu leeyahay iyo mataqaanaa waxyaala loogu talagalay haddaba inta aanu nabiga calayhi salaatu wasalaam imaanin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la soo dirin waxaa jiray guurar kala duwan ayaa jiray iyo nikaxyo kala duwan ayaa jiray diinta islaamku ay baabi'isay meesha ka saartay nikaxyadaas diintu ay baabi'isana waxay ahaayeen kuwa ilaahay subxaanahu wa tacala sunnatiisa ka hor imaanaya qaabka alla subxaanahu wa tacala ugu talagalay in guurku u dhaco kuwo ka hor imaanaya bay ahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam bicadiisii marka la soo saaray nabiga oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu bilaabay dadka diintan ugu yeero waxyaalihii u horreeyay meesha laga saaray waxay ahaayeen guurkii baadilka ahaa ama ka hor imaanayay allah subxaanahu wa tacaala wadooyinkiisa waxaa la tilmaamaa inuu jiri jiray nikaaxa la odhan jiray nikaaxulkhidmi waxa maanta loo yaqaano boyfriend ama girlfriend laysku qabo ninku inuu haweenay saaxiib u leeyahay iskala socdo la mucaasharoodo la dego maaragtay sidii inuu qabo oo kale ay wada nooladaan nikaaxa noocaas oo kale ama guurka noocaas oo kale wuxuu jiri jiray xilligii jaahiliyada oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka horreysay waxayba oran jireen haweenku yani kaanuu yaquuluuna ma statara falaa ba'sa bihi wamaa dahara fa huwa la-um waxay oran jireen wixii qarsoon oo hoos hoos loo sameeyo oo ninka iyo naagtu ay hoos hoos u samaystaan iyadoo cid kale la ogeyn ay samaystaan falaa ba'sa bih wax dhibaataa ma jirto wamaa dahara fa huwa la-um wixii laakiin muuqdo oo banaanka lala soo istaago oo banaanka lala yimaado kaasaa wax ceebaysana oan loo baahnayn ah marka ninka iyo naagtu hoos bay iska haysan jireen waa wada degnaan jireen markuu rabo u imaan jiray taas ilaahay subxaanahu wa tacala meeshuu ka saaray wuxuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala walaa mutakhidaati akhdaan haweenka ha ka samaysanin ha ka dhiganina kuwa aada hoos hoos ula heshisaan aada hoos hoos ula seexataan waxaa kaloo jiri jiray nikaax kale ama guur kale isagana la ohan jiray nikaaxulbadel la ohan jiray sida imaamu daari qudni raximah llahu tacaala uu soo saaray xadiis
aba hureyre laga warinayo inkastoo sanadkiisa dacfi ku jiro waxa uu leeyahay ninku intuu u yimaado nin kale ayuu wuxuu ka oran jiray inzil lii can imra'atik wa anzilu laka can imra'atii wa aziiduka haweentaada iga deg oo aan qaata isii anna taydaan ku siinaya siyaadana waa kugu daraya balo fiirsada yacni nikaaxyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii islaamku baabi'isay bay ka mid ahaayeen ama guurkii ay islaamku baabi'iyey buu ka mid ahaa ninku intuu u yimaado nin kale wuxuu ka oranayaa haweentaada isii aan soo hayste anigana taydaan ku siinaya soo hayso weliba anugu siyaada kugu daraya maal baa kugu daraya sidaasee maaratay mid walba midka kale usoo haysan jiray oo waxaa laga yaabaa ninku inuu maaratay naagtiisa ilaa sanadka gudihiisa ama bisha gudaheeda 10 nin uu siiyo oo 10kaa ninna haweenkooda maarata soo kaxayso marba mid maarata ula seexdo taasna diinta Allah subxaanahu wa ta'ala meesha waa ka saartay Caaisha radiyallahu ta'ala anha ayaa iyaduna waxay ka sheekayso wax leedahay xilliga jaahiliyadii oo yaani nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hor 4 guur oo kala duwan ayaa jiri jiray 4 guur oo kala duwan ayaa jiri jiray 4ta guurna yaani mid maahan intii kala diintu way baabiisay 4ta guurna waxay kala ahaayeen kan koow sida Caaisha radiyallahu ta'ala anha ay maarat leedahay kan koowaad waxay tiri nikaaxu naasi yawm nikaaxu naasi al-yawm maantay nikaaxaynu samaysanayno waaga waa jiray oo loo yeerayo warigii la nikaaxinayo markhaatiyaal joogaan raalli la isaga yahay mataqaana qabuulkii dhacaayo kaa maanta aynu isticmaalno kale ugu jiray oo yakhdubu rajulu ila arrajuli waliyatah ninka oo ibnatahu ninka kale ka dooni jiray gabadha waliga u yahay ama gabadhiisu ka dooni jiray sadaaqna waa bixin jiray meherna waa bixin jiray thumma yankixuha uu guursan jiray marka taas waa jiri jirtay islaamkuna waa sugataa iyada ah ninku markuu rabo inuu guursado inuu haweeneyda u guursanayo ama gabadha u guursanayo waligeeda u tago gabadhii ka doono meher u bixiyo ka bacdina saa loogu nikaaxo nikaaxu naasi yawm bay u bixisay nikaaxa maanta la isticmaalo kale waa jiri nikaaxa labaad oo jiray xilliga jaahiliyada ah oo islaamku baabi'iyey waxa weeyaan kaana arajulu yaquulu limra'atihi idaa daharat min damfiha ninku xaaskiisa ayuu wuxuu ka oran jiray markay dhiigga ka qubaysato markay caadada ka mayrato ayuu wuxuu ka oran jiray arsilii ilaa fulaan fastabdicii minhu u tag ninka hebel la yidhaahdoho yacni la joog ha ku galmoodo ninka hebel la yidhahdo u tag haweenta uu diraya waa xaaskiisu weeyaan xaaskiisu marka ay caadada ka qubaysato ama xaydka ka qubaysato ayuu wuxuu ka oranayaa ma qubaysata ha orodoo ninka hebel la yidhahdo u tag oo habeena la soo joog fastabdacii minhu yacni ha ku galmoodo oo mataa galmo ka dalbo oo yani la joog wayactaziluhaa zawjuhaa xataa yatabayana xamluha ninkeedana qabaana markuu diraayo inta ninka ay la joogto u tegi maayo ninkaasi ku maqan tahay u galmoon maayo ninkeeda caadiga ah ninkaa loo diray unbaa u galmoonaya maalinta uu ogaado inay uur leedahay markaasbuu gabadhi soo kaxaysanaya marka xaaska soo kaxaysanaya fa idaa tabayana markuu ogaado gabadhi inay uur leedahay asaabaha idaa axaba hadduu doono markaas u galmoonaya balo fiirsada ninku haweentiisa markay dhiigga ka qubaysato buu wuxuu oranayaa u tag ninka hebel la yidhaahdo oo la soo joog maalmo la soo joog way tegaysaa ninkiibay u tegaysaa mudday la joogaysaa marka ogaato in uur leeyahay in uur leedahay marka ogaato ayay soo noqonaysaa ninkeeda u imaanaysaa markaasuu maaragtay sidiis u haysanaya marka waxay leedahay wainamaa yafcalu dalika raqbatan fi najaabati lwaladi wuxuu saa u samaynaya waxa weeyaan inuu helo rabaa caruur wanaagsan oo maalan ninka uu naagtiisa u diray ayaa sharaf iyo ama mataqaanaa waxa lagu yaqaano hooday inuu haysto ayaan leeyahay waxa lagu yaqaano nasiib badan inuu yahay waxa lagu yaqaano geesiya inuu yahay waxa lagu yaqaano magac inuu yahay marka wuxuu rabaa cunugiisa ama wiilkiisu inuu sidaas oo kala noqdo ninkaasu marka naagtiisa u diraya ama xaaskiisa u diraya ilaa inta uur ka yeelanaysana waxa weeye ninkaas bay la joogaysaa wa yusama hada nikaax alistibdaac nikaaxa noocaas oo kalena magaciisa waxaa la ohan jiray istibdaac baa la ohan jiray saasaa dhici jirtay islaamku taa waa buriyey islaamku taas waa baabi'iyey daaqadu ka saaray nooc saddexaad baa jiray oo islaamku baabi'iyey waxa weeyaan
ama nikaax saddexaad baa jiray kaasoo waxaa la yihahdaa magaciisa yani nikaax kale weeyaan waxay leedahay caaisha radi allahu taala canhu yajtamicu rahatu maa duuna alcashara toban yani dhowr qof dhowr nin toban wax ka yar weeyaane ayaa waxay isugu imaanayaan cala almar'ati haweeney fayadkhuluuna haweentiiba u galmoonayaan dhowr nin 8 nin 9 nin 7 nin ayaa haween u imaanay qof dumar u imaanayaan qofka dumarta ahi ama dumarka ahi 7 nin ama 8 nin ama 9 nin yani waa u bannaan tahay waa u galmoonayaan mar kasta u imaanayaan waa u galmoonayaan kulluhum yusiibuhaa dhammaantoodna haweentaasba u galmoonayaan faidaa xamalat wa wadacat markay uuraysatoho ilma ay dhasho wa mara calayha layaal habeenna ay ka soo wareegaan ilmihii dhashay ilmihii markuu dhashay dhowr habeen baa ka soo wareegay arsalat ilayhim dhowrkii ninoo u galmooday beeleda ha loogu yeero hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ha loogu yeero leedahay falam yastadic rajulu minhum an yamtanic nin iyaga ka mid ihi inuu diido yani ma suurtoobayso inta nin ay magacowdo oo la seexan jirtay kulli u yeeray beleda kulli waa imaanayaan xataa yajtamicu cindaha markay 10 kuba isugu yimaadaan agteeda oo ay soo kulmaan 10kii u yeertay fataqulu lahum waxay ku oranaysaa marka gabadhii nimankii dhowrka nin ahaa qad caraftum ma kana min amrikum waa la socotaan xaalkiinu siduu yahay inaad dhowrkiinaan i galmooteen oo i galmoon jirteen nin walba waa og yahay ma qarsoona haddana maantana ilmaan dhalay fa huwa bnuka ya fulaan hebelow cunugan adaa iskale beleda marka mid ka mid ah ayay dooranaysaa tusamii man axabat bismihi kay jeclaato bay leedaha ilmahadaa dhalay walu fiirsada waxay leedahay marka caaisho fayalxaqu bihi aw fayulxaqu bihi waladuha cunugeedii ninkii baa la raacsinaya marka laa yastatiicu an yamtanica minhu alrajulu ninkaasi ilmaha inuu diidana yani ma dhacaysa ma suurtoobayso walu fiirsada marka aan ku celiyay kan waxa uu ilaa dhowr nin 8 nin 9 nin 7 nin ayaa hal dumar ah hal gabar ah isugu imaanaya nin walba u galmoonaya marka uur qaado oo ilmo dhasho bay 10kii ama dhowrkii nin isugu yeeraysaa waxay leedahay qof walba uu og yahay aniga inuu galmooday waxa qarsoon maaha ilmahan hebel baa dhalay mid bay leedahay dhalay kii ay jeclaatay markaas wax dana gaar ay ku raacday beelada ilmahaada dhalay ilmihii baa la raacsiinayaa markaa ma diidayo nikaaxa afraad ama guurka afraad oo dhici jiran wuxuu ahaa xilligii jaahiliyada sida caaisha radi allahu tacala canha ay sheegayso waxay leedahay yajtamicu naasun kathiirun dad badan baa waxay isu imaanaya fayadkhuluuna cala almar'ati laa tamtanicu miman jaa'aha wa huna albagaaya hal haweenaba waxaa laga yaabaa intaas oo nin ay u galmoodaan qof kasta usoo galmoodayana ma diidayso wa huna albagaaya waa haweenka yani jirkooda iibsado weeyaan marka caan bay ahaayeen haweenkaasi waxay caaisha leedahay yansibna calى abwaabihina raayaat takunu calaman gurigooda albaabkiisa yani calan baa u saarnaan jiray yansibna calى abwaabihina raayaat albaabkooda waxay ka taagi jireen calan maray ka taagi jireen takunu calaman si ugu noqoto calaamad yani nin walba oo kusoo leexdo marka haweeney baa gurigaa degan nin walba ku leexanayo oo la og yahay marka guriga dushiisa waxa maraa saarnaan jiray maradaas calaamad bay ahaan jirtay marka nin kastoo waddada maraya marka waa kusoo leexanaya xoogaa lacagu siinaya oo halkaas buu galmoonaya faman araadahuna dakhala calayhina qofkii haweenkaa raba waa u galmoonaya faidaa xamalat ixdaahuna wawadacat markay mid ka mida ay uureysato ilma dhasho jamacuu lahaa raggii baa isugu imaanaya la isugu yeeraya intii nin u galmooto way taqaan magalada waa las yaqaanaa intii baa isugu imaanaya wadacaw lahum lqaafa waxaa loogu yeerayaa waagaas iyadaahi hadda d n a baa la isticmaalaa oo ninku ama haweeneyda ilmaha markay dhasho ilmaha kan cidda dhashay waxaa lagu gartaa d n a baa lagu gartaa maanta buu kala saaraa marka iyadaa ma jirin dad loo yaqaano alqaafa oo waxay yihiin dadka yani sinjisooca loo yaqaano nin sinjisooca baa loo yeeraya
dacaw lahum lqaafa dad sinji sooc ah oo qofkaan sinjiga inuu qofkaa sinjigiisa yahay oo qofkaas baa dhalay calaamadahay ku gartaan baa jiray leeyihiin ayaa loo yeeraya kabacdi cunugii waxaa la raacsiinayaa nimankaasi ninkay sheegaan inuu ilmahaasi leeyahay cunugana magacaas baa loogu yeerayaa sidaas ba maaragtay ilmaha loo kaxaysanaya marka afartan nooc baa jiri jiray xilligii jaahiliyada ahaa mid ka midi waa nikaaxa maanta ay samaysano weeyaan saddexda kale waxa weeyaan saddexda islaamku baabiiyey marka caaisha radi allahu tacala canha waxay leedahay falama bacatha muxamada sala allahu calayh wasalam bilxaqi ilaahay subxaanahu wa tacala markii oo bucitha muxamed markii muxamed la soo saaray bilxaqi xaqi hadima nikaaxa aljaahiliyata kullah wuxuu baabi'iyey nikaaxyadii dhici jiray ama guurkii dhici jiray xilligii jaahiliyada ila nikaaxa alnaasa yowm nikaaxa maanta dhacaya mooyaane saas markaas diinta islaamku u habaysay u hagaajisay waxa loo yaqaano guurka loo yaqaano saas u hagaajisay waxyaalahaas yani qurunka ah oo mataqaanaa nasabka isku dhex khaldamaayo oo hal nin oo dhowr haween u galmoonayay waxyaala noocaas o dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisu meesha ka saartay waxaa la daaya keliya kan ninku uu markuu rabo inuu guursado gabadha reerkooda ka doonayo gabadhu ay siinayaan gabadhu ay meher mataqaanaa u sameynayaan isna waxa meherku uu bixinayo markhaantiyaal ay joogaan sidaasu marka wuxuu ahaa nikaaxa yani diinta islaamka usugta weeyaan haddaba nikaaxa waxa loo yaqaan ama guurka loo yaqaano diinteena islaamku way baraarujisay marmarka qaarkood waxay ku tilmaantay diintu inay tahay sunan lambiya ambiyada alla subxaanahu wa tacala iyo nebiyadii wadadoodii inay tahay bay caddaysay alla qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay waxaanu dirnay rusul baanu dirnay nebi maxamed adig hortaada rusul baanu dirnay wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya waxaan u yeelnay ambiyada aan dirnay xaasas iyo caruur xaasas iyo caruur bay lahaan jireen marka in lagu daydo oo la guursado oo caruur la raadiyo ayay aayaddaani kutusaysaa marka aayaddaani ilaahi subxaana wa tacala marba sibuu uga hadlaa guurka markaa waxaa looga hadlay oo kale in maaragtay layna xusuusinayo ambiyada alla subxaana wa tacaala wadadooda iyo dariiqadooda iyo sunnadooda inay ka mid ahayd inay guursadaan xadiis imaamu tirmidi soo saaraya baa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey abu ayub alansaari saxaabiga isaga ahi radia allahu tacala canhu waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi arbacun min sunan lmursaliin afar waxyaalood waxa weeyaan rususha allah subxaanahu wa tacaala soo diray wadadeeda weeyaan wadooyinkii ay iska lahaayeen iyo dhaqankii iyo caadooyinkii ay lahaayeen ambiyada allah subxaanahu wa tacaala soo diray iyo rusushii afar waxyaalood buu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam alxina riwaayadaha qeyb ka mid alxayaa bay tilmaameen xinaha la marsado watacatur in maaragtay layscadareeyo laysbarfuuniyo wasiwaak cadayga iyo wanikaax iyo guurkaba intaasna diinteena islaamku waxa weeyaan way baraarujisay oo xinaha oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam uu isticmaalay ciradana in lagu dooriyo nebigu u ammaanay sidoo kale tacadurka waxaa loo yaqaan in laisbarfuumiyo oo raggu markay banaanka u baxayaan oo u banaanta isbarfuumiyaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay adduunka waxyaala u jeclaya waxaa ka mid ahayd waxyaala laisku carfiyo nabigu waa jeclaa bal nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii loo soo taago waxyaala laisku carfiyo nabiga ma celin jirin haddii loo soo taago wax yani caraf ah sida miski oo kale nabigu ma diidi jiren waa qaadan jirin siwaaka ama cadayga waxaa loo yaqaano waxay ka mid tahay ambiyadii alla subxaanahu wa tacala waxyaala samayn jireen nabiga calayhi salaatu wasalaamna waxa weye wuu nagu baraarujiyeba walowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wudu'in oo kama qaal wuxuu le nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aanan ka baqaynin ummadayda inaan yani ay dhibsadaan waxaan amri lahaa xilli walba oo la tukanayo la weyse qaadanaya inay cadaydaan ayaan amri lahaa nikaaxna waati taafraad nikaaxa weeyaan nikaaxuna waa guurka weeyaan marka guurkuna waxa way saas oo kale ayaana ku baraarujiyey marmarka qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayo guurka wuxuu uga hadlaa hab yani imtinaan oo kale ah sida alla subxaanahu wa tacala noogu mana sheeganayo guurka mana sheegasho waa lagu mana sheeganaya wuxuu alla subxana wa tacala leeyahay wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja
wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafadata warazaqakum min aطayibaat wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja. waa yani waa mana sheegasho weyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan naftiina idinka sameeyey xaas, naftiina laydinka sameeyey xaas aad hooyataan. xaas wataan soo tilmaanay nabiy llahi aadam feerdhaysa baa laga abuurayba. wa khalaqa minha zawjaha. ilahay subxaanahu wa tacala marka hore wuxuu sameeyey naf kaliyu sameeyey nabi aadam buu ahaa. wa khalaqa minha zawjaha, nafta xaggeeda muxuu ka sameeyey xaaskeedii. marka aayaddan alla war nagu mana sheeganaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan naftiina ka sameeyey xaaskiini. intaan laguma harin. wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafadatan. xaaskii alla subxaanahu wa tacala idin siiyana alla wuxuu idinka yeelo o idinka sameeyey baniina caruur, waxafadatan caruurtiina waxay sii dhalaan ubad baa ka hesha. warazaqakum min aطayibaat, ilahayna kana ku irsaaqo weeye waxyaalaha wanaagsan. marka aayaddaani alla subxaana wa tacala guurkood nagu mana sheeganaya. mana sheegadkaasi de qofkan guursani oo guur la-aani ku dhacday oo guurka isaga tegey oo isagu banaan ka maray waan arki doonaa. lama ogolo qofku inuu guurka ka tago. qofku inuu guurka ka tago lama ogolo. tabatul baa la yihahdaa. isdhufaamid wey lama ogolo. waan arki doonaaye. qofka marka loo marna sheeganaya waa qofka guursado weeyaan. ba alla subxaanahu wa tacala leeyahay isbaraya. ilaahay waa ilaahay idiin sameeyey, naftiina ka sameeyey, xaaskiina ka sameeyey, xaaskana idinka yeelay caruur iyo ubad inaad kasii heshaan. marmarka qaarkood ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu guurka ka hadlayo wuxuu uga hadlaa yani qaab inay ka mid tahay ilahay mucjizaadkiisa oo kale. ilahay aayaadka lagu garto, aayaadka kowniga ah. waxaa jira aayaad kowni ah iyo aayaad sharci ah oo ilahay subxaanahu wa tacala markuuna fahansiinaya cidda uu yahay dadka wuxuu ku waaniyaa ima inuu ku waaniyo aayaad kowni ah wa ima inuu ku waaniyo aayaadka sharciga ah. aayaadka sharciga waxa weye waxyiga weyaan, qur-aanka weyaan iyo sunna nabi alay slam. aayaadka kownigana waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala markuu kula hadlayo oo kaala hadlayo cirkan siduu u abuuray, dhulkan sida u abuuray, yani maanta biyaha sida loo sameeyey, yani samooyinka arkaysaan, qofka sida loo abuuray, kowni baa la yihahdaa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala marmarka qaar markuu guurka ka hadlayo wuxuu uga hadlay yani inay ka mid yihiin aayaadkiisa kowniga ah. wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma ina fi dalika laaayaati liqowmi yatafakaruun. wuxuu leey alla subxaanahu wa tacaala wa min aayaatihi, ilahay aayaadkiisa waa weyn waxaa ka mid ah. aayaadka alla subxaanahu wa tacala waa weyn oo aad ku garanaysaan ilahay waxdaanadiisa, ilahay kamaalnimadiisa aad ku garanaysaan waxaa ka mid ah an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja, inuu idinkeeni ka abuuray naftiina zawj inuu idinka abuuray. kabacdina litaskunuu ilayha, saaad ugu xasishaan. ninku maanta dhan buu ordaya, hadhow gurigu ku hoyanaya, haweentiiba u joogto cunto u diyaarisay. ninka yani doobka ahi ama gabadha mataqaana doobadda ahina hadda maanta dhan buu soconaya ama soconaysaa, hadhow sariir xun baa ku dhacaysa, cidlaama ku dhacaya, aan cidi uga horeynin. dharkiis waxaa laga yaabaa saaki saas ugu tuuray meelada yaalin. waxaa laga yaabaa inuu maarata tomberi dharkii isdul fushay wasakh awgeed wax hagaajilaaya iska daa wax kale. marka alla subxana wa taala wuxuu leeyahay litaskunuu ilayha, saa ugu xasishaan. gurigaa tagaysa ugu xasilaysa, yani naxariis baa ku helaysa marka guriga soo gasho. inta lagama harna waxa leey wajacala baynakum mawadatan waraxma, ilaahay subxaanahu wa tacala dhexdeena wuxuu yeelay kalgacal iyo naxariis. kalgacal iyo naxariis. guriga marka la yimaado waa ina kalgacal iyo naxariis la dalba la dareema. laakiin haddii kabtu kaa hor imaanayso ama isagoo gabadha kab ka horgeynayo, naxariis meesha ma taalo weeyaan. intaa markan loo sheegay oo loo ka sheekeeyay in aayaadka alla subxaanahu wa tacaala waaweyn ay ka mid yihiin bu alla subxaanahu wa tacala wuxuu yihi ina fi dalika laaayaati liqowmin yatafakaruun. inta aanu soo sheegnay waxay aayaad iyo mucjisaad u yihiin liqowmin yatafakaruun, qolo fakaraysa, qof caqligiisa isticmaalaya. qof caqligiisa isticmaalaya. aayaadkan alla subxaanahu wa tacala ka soo hadlay waxaa ku waansamayay qof caqligiisa isticmaalaya. qur-aanku maaha wax layska maraho layska akriyo sida shicirkii maaha. aayad markaa akrido waa in aayadda daranta weeyaan. allah subxana wa tala wuxuu ley marka qur'anka iska inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakaluun. dadka mu'miniinta marka laga hadlayo ilahay subxaanahu wa tacala u fiirsada. dadka mu'miniinta waxa weeye kuwa marka alla subxaanahu wa tacala lagu xuso, ilahay subxaanahu wa tacala marka la xuso oo qur-aankiisa la sheego oo ilaahay laga hadlo
wajilat quluubuhum qalbigooda ayaa yani gariraya, qalbigooda ayaa qabandhacyoonaya, baqdin baa gelaysa. waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana, marka aayaadka lagu akhriyana waxa u ziyaadaya iimaan ba u ziyaadaya. hadda aayadaynu akrinay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadata waraxma. alla wuxuu ina fii dalika laaayaati liqowmin yatafakaruun. aayaad baa ku jira arrimahan ka soo hadalnay, waxayna aayaadkan iyo mucjisaankan ka helaya liqowmin yatafakaruuna, kuwa maaratay kuwan sameeya. marka qur-aanku saas uga hadla walaalayaal guurka waxa loo yaqaano, bal iska badaa wax kale. qur-aanku waxa uu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu watacala markuu ka hadlayo guurka inuu guurku yahayba wadooyinka laga helo yani hodantinimada. qofkii hodantinimo raadinaya iyo inuu xoolo helo qofkii raadinaya meesha uu ka helayo baa waxay tahay guurkana guursada weyaan. allah subxaanahu watacala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay waankixu layaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqaraaa yugnihum allahu min fadlihi wallahu waasicun caliim. wankixu ayaama jamcu ayam weyaan, kuwiina aan nimanka lahayn, haweenkiina aan niman kalen u guuriya, ama raggiina aan xaas kalen u guuriya. wankixu ayaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum, kuwiina wanaagsan oo addoommada alla subxaanahu watacala ragga dumaraba oo aan guurka haysan u guuriya. qaab amara ku timi kabacd alla subxana wataala wuxuu leeyahay in yakunuu fuqaraaa yuqnihim allahu min fadlihi, hadday waxba haysan oo faqiirin yihiin oo yani ay waxba haysan, yugnihim allahu min fadlihi, ilaahay subxaanahu watacala fadligiisa ka maalqabansinaya. ilahay subxaanahu watacaala baa fadligiisa maalqaban uga dhigaayo, xoolay helayaan, ha guursadeen. ayadda waxaa lagu soo gabagabeeyey wallahu waasicun caliim. gabagabadaasi macna weyn bay leedahay. wallahu alla subxaanahu watacala baa waasic ah, risqigiisu mid waasic yahay weyaan, qofku doono u ballaaran alla subxaanahu watacaala. caliimna waxa weeyaan ilahay wuxuu ka warhaya addoommadiisa. qofkan guursanayo waxba haysan, caruurta haysto waxba haysan, caruurta doonayo guur xalaal doonayo waxma haysto, ilahay waa ka warhaya. marka allah subxaanahu watacala wuxuu leeyahay in yakunuu fuqaraaa yugnihum allahu min fadlihi wallahu waasicun caliim. marka meesha laga helo qofkii raadinayo maalqabeennimo, qofkii raadinayo iyo xoolo qofkii raadinayo guurso. aayadda allah subxaanahu watacala baa noo sheegay inaad guur helaysid. bal nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis imam tirmidi soo saaraya waxa uu tilmaamayaa qofka raba inuu guursado alla darti u guursanaya, inuu ku dhowrsanaado u guursanaya, oo inuu xaaraantii isaga ilaaliya u guursanaya, in allah subxaanahu watacala gacnihi garab siinayo. waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam halaathun xaqun cala allahi cawnuhum. saddex waxyaalood ilaahay dushiisa dhab bay ku tahay, xaq bay ku tahay inuu gacni garab siiyo. ilahay waajib kumaha isaga, laakiin isaga alla subxana watacala is saaray. ilahay wuxuu isa saaray saddex qolo alla inuu gacan iyo garab siinayo. saddex qolo alla subxaanahu watacala inuu garab iyo gacan siinayo. ta koowaad waxa weeyaan almujaahidu fi sabiili اllah, jidka alla subxaanahu watacala qofka ku diriraya, jidka alla subxaanahu watacaala qofka ku diriraya. almujaahidu fi sabiili اllah, jidka haddaad ku diriraysid alla subxaanahu watacala ku diriraysid, ilahay gacniga garab ku siinaya. falyuqaatil fi sabiili اllahi aladiina yashruuna alxayaata اdunya biاlaakhira wman yuqaatil fi sabiili اllahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nuutihi ajran cadiima. suurat nisa allah subxana wa tacala ku leeyahay dagaalama bi dadka doonaya inay aakhire helaanow adduunka isaga tagaanow dagaalama. waman yuqaatil fi sabiili اllahi, jidka alla qofka ku dirira oo ku dagaalama, fayuqtal oo lagu dilo, aw yaglib ama guulaystaa, fasawfa nuutihi ajran cadiima. qofka laga guulaysto oo la dilo ama laga guulaysto yani gacan iyo garabka looga adkaado, ilahay baa subxana watacala gacani garab siinaya. xataa haddii uu soo adkaado ilahay marba gacan siinaya. marka almujaahidu fi sabil. qofka labaadna waxa weeyaan almukaatabu aladi yuriidu اladaa. mukaatabka qofka loo yaqaano kaasoo doonay inuu gudo. mukaatabka waxa weeyaan addoommada marka la addoonsan jiray. diinta islaamku waxay yani keentay dadkii addoommada ahay oo la addoonsanayey in maaragtay la furto oo midab la xoreeyo baa diintu baraarujisay. marka mukaatabku waxa weeyaan nin baa kaba soo qaad qof addoona iska leh ama addoon buu leeyahay, wuxuu ku oranayaa $1,000 baan kugu qoray inaad bixiso, $1,000 maalintaa dhammayso
kunkaa doolar maalintaa dhamayso xor baa tahay mukaatab baa marka marka ninkii wuxuu bilaabaya addoonka inuu shaqeeyo doonaya si uu isu furto marka alla wuxuu leeyahay nabigu wuxuu leeyahay almukaatabu qofka mukaatabka ah oo in la xoreeyo doonaya alladii yuriidu aladaa oo raba in mataqaana lacagtii lagu qoro inuu bixiyona ilahay baa gacani garab siinaya kan saddexaad waa kan aan doonayna weyaan annaakixu alladii yuriidu alcafaaf annaakix yani waa guursade qofka guursadaha ah oo guursaday alladii yuriidu alcafaaf kaasoo doonaya inuu ku dhowrsanaado oo sinadii iyo fiirintii iyo wixii isaga ilaasho waxa weeyaan allah subxaanahu wa tacala gacani garab buu siinaya marka haddaynu doonayno inaynu alla garabi gacantis ka helno in la guursado weyaan qur-aankuna waa ku ammaanay guurka markuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaai mathna wathulaatha warubac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum dalika adna anlaa tacuulu alla wuxuu amray gabdhihii la guursado marka laba loo guursado saddex loo guursado afar loo guursado yani alla wuxuu leeyahy fain khiftum an laa tacdiluu haddii qofku uun laba ka bixi karin ama saddex ka bixi karin oo awoodda ahayn financially and physicallyba aan uga bixi karin inuu guursado haween labaad iyo saddexaad toona fawaaxidatan mid buu guursanaya marka alla subxana wa tacala gacanii garab buu siinayaa qofkii raba maarta inuu guursado sidoo kale imaamu tirmidi waxa uu soo saaray warinaya xadiis kale oo wuxuu leeyahay markay soo degtay والذين يكنزون الذهب والفضة سورة التوبة الله سبحانه وتعالى dadka kaydsada dahabka iyo qalinka buu alla ka hadlaya wuxuu leeyahay dadka dahabka iyo fidada kaydsanaya walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim oo intay dahab iyo qalin intay kaydsadaan aan sakadii ka bixinaynin cadaab bishaaray marka saxaabiga xadiiska warinaya wuxuu leeyahay nabigaan la soconay safar baanu ku jirnay saxaabadii qayb kamid ah waxay yidhaahdeen aayaddan waxay kusoo degto ceebeynaysaa waa dahabka iyo qalinka weeyaane haddaan ogaan lahayn falow calimna ayu lmaali khayr fanattakhiduhu haddaan ogaan lahayn yani maalka u fiican wax la haysto waxa u fiican haddaan ogaan lahaynoo aan meel dhiganne aan haysanne faqaala nabigu wuxuu yidhi lisaanun daakirun wa qalbun shaakirun wa zawjatun mu'minatun tuciinuhu calaa iimaanihi wax qofku yeesho oo qofku soo helo wax u wanaagsan lisaanun daakirun carab mataqaanaa dikri badan oo ilaahay subxaanahu wa tacala xadigoon xusaya aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab الnar dadka marka digrinayaan iyagoo fadhiya iyagoo soconaya iyagoo taagan kulli digriga allah subxana wa taala digriguna maaha maarata si qalqeeliso maaha subxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar in akhra digri weyaan iyo wax kasto alla subxaana wa tacala lagu xusaayo wa qalbun shaakirun ka labaadna waxa weya qalbi shaakira qalbi shukri badan oo ilaahay subxaana wa tacala nicmadiisa hadigo ka shukrinaya ta saddexaadna waxa wa zawjatun mu'minatun tuciinuhu calaa iimaanihi haweeney muslimada oo mu'minada oo saalixada tuciinuhu calaa iimaanihi ninkeeda ku kaalmaynaysa iimaankiisa wax la haysto saas u fiican marka haweeney mu'minada inaad mataqaana xaas ku ahaato wax ka fiican ma jiraan marka nebiguna xadiis kale ku leeyahay uu ammaanayo guurka dadka wanaagsan in la guursado nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay addunya mataac adduunyadu waa iska nolol weyaan raaxo weyaan nolol dhagdhagla weya iska raaxo weyaan marka nebigu waxa uu leeyahay wa khayru mataaciha almar'atu الsaalixa wax lagu raaxaysto adduunyadan waa laga tegayay waxa ugu fiican waxa weeye haweenta saalixada weyaan lama oran haweenta qurux badan lama oran haweenta quruxda badan lama oran haweenta maalqabeenka badan lama oran haweenka mataqaanaa ee meelaha ka hadla lama oran waxaa lagu yihi maxay wa khayru mataaciha almar'atu الsaalixa haweenta saalixada ah saalixa waxaa la yihahdaa diinta allah subxaana wa tacala bay ku dhaqantay wixii laga reebay bay ka tagtay wixii la amray bay qaadatay marka diinta allah subxaana wa tacaala guurka halkaasi gaarsiisay sidoo kale guurka marka laga hadlayo sharcigu ama diinta islaamku inuu qofku guurka isaga tago waxaa loo yaqaan tabatulka weyaan ama isdhufaamida weyaan oo gabadhu tirada weligay guursan maayo wiilkuna inaa weligay guursan maayo sharcigu ma ogola maxaa yeelay waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nooga warramay 3 qolobaa waxay u yimaadeen
ama 3 nin baa nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa yimi markaasay waxay weydiiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiisa markaasa waxa looga sheekeeyay nabiga cibaadadiisa saas u tukada intaas u tukada wayahay markii looga sheekeeyay waxay yiraahdeen wa ayna nahnu min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad qufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar amalkooda baa la yaraaday markaasay waxay yiraahdeen war anagu nabiga saa u sameynaya nabiga dambigiisa hore waa loo dhaafay kiis dama waa loo dhaafay anaga marka maxaa nafariisiyay nin baa soo bada wuxuu yiri amma ana fa inni usalli al-layla abadan aniga miya habeenkii oo dhan baan tukanaya hadda nin caawda tukanaya maalinta waa dhacaya weeyaa xaasi war uma hayo wa qala al-aakharu kikalna wuxuu yiri ana asuumu ad-dahra wala afdur anigu yani sanadka dhan baan soomaya 12 bilood baan soomaya ma ramadaan ku jirto mana afurayo nin Soomaaliba Soomaali muxuu qabanaya marka wa qala al-aakhar kikala wuxuu yiri ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abada anigu haweenkan ma ka tagayaayo waliga guursan maayo cibaada u go'aya haweenkaba waan ka dheeraanaya waliga ma guursanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa yimi xaafadii waa loo sheegay nimankii waxay yiraahdeen niman baa xaafada yimi waxayna weydiiyeen cibaadadaada waa uga sheekaynay isaa u tukatay waxa qabato ka bacdi nin walba uu yareystay arintoodiyo nin walba saas u yiri nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam amma ana inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum lahu lakinni asuumu wa afdur wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni amma wallahi inni la akhshaakum lillahi wallahi baan ku dhaartay kan Allah idin ku cabsi badan aniga weeye wa atqaakum lahu uguna taqwo badan Allah subhanahu wa ta'ala aniga weeye lakinni asuumu wa afdur anu waan sooma waan afura wa usalli wa arqud waan sooma waan yani habeenkina waan tukada waan seexda wa atazawwaju an-nisaa haweenkana waan guursadaa sagaal baa nabi isku soo gaaray ilaa 12 baa la yiraahdaa gaarsi qolna waa dhaafsay inta nabiga calayhi salaatu wasalaam yani aqdi ama guur nabigu soo maray 12 baa la yiraahdaa waa bal dhaafsay 12 laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam sagaal haweena mar isku soo gaaray marka nabigu wuxuu atazawwaju an-nisaa anigu haweenka ayaan guursadaa faman raqiba an sunnati falaysa minni ninkii sunnadayda naca oo dariiqadeeda wadadeeda ka taga falaysa minni anigu qofkaas iga mid maaha halkaas la gaarsiin marka diintu ma ogola qofku inuu yiraahdo anigu ma guursanayo oo banaankaas maraya oo waxaan qabanaya ma jirto qofku inuu yiraahdo ma ogola in la iska ilaasho baa laga maarmaan weeyaan inta waxa si dheer nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo amaanay si guurka loo badiyo dumarka teeda fiican dumarku wada fiican ayuu nabigu amaanay wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam thalathatun min as-sa'aada saddex waxyaalo waxay ka mid yihiin waxa loo yaqaan saacadaduna waxa weeyaan liibaanta adduunka iyo aakhirada saddex waxyaalood baa ka mid ah kow nabigu wuxuu yiri al-mar'atu salihah haweenta wanaagsanoo taraaha tu'jibuka markaad aragto ku cajiib gelinaysa saa marka u fiiriso aad jeclaysanaysid nadiif weeyaan taqwa Allah ku sugan tahay waa islaalinaysa afkeedii adika laga maan galay marka saa u fiiriso baad jeclaanaysaa al-mar'atu salihah taraaha tu'jibuka marka saa u fiiriso ku cajiib gelinaysa wa taghibu hadii aad maqan tahayna fatamanuha ala nafsiha wa malik naftaadi iyo maalkaaga aamin gelinaysa yaxna ka wada nafteedii iyo mataqaana iyo maalkeedii ba aamin ka tahay haweenta fiican waa taas haween wanaagsan oo marka saa u eegto ku cajiib gelinaysa mar alla mid ka saa u eegto waa jeclaysanaysa marka ka maqan tahayna nafteedii iyo maalkaagiiba kulli aamin ba dareemaysan yihiin waa haweenta fiican weeyaan nabiga markuu saddex tilmaamay mid daabada ahaynina guriga ka hadlay ayuu wuxuu kaloo sheegay thalathatu min ash-shaqaawa saddex waxyaalood ayaan darada ka mid yihiin saddex waxyaalood ayaan darada ka mid yihiin qofka ku dhacda ninkay ku dhacda ayaan daro weeyaan al-mar'atu taraaha fatasuuk haweeney markaad sa u soo gasho gurigaaba ku xumaynaysa xumaan baa ka qaadaysa wa tahmilu lisaanaha alayka wa tahmilu lisaanaha alayka arabkeeda kugu soo xambaaraysa mar alla marka tira salaamu alaykum waran allah di balay ku dhacday xayaa ka baxda maanta dhan baan ku sugaynay bal ku dhufatayda male maxaa soo sameynaysa
war ma kaalay meesha ima soo gaaray bala ku dhacday hadda kor baa la sheegay nin oday ahaayo xaakim ahaayo xikmad badnaayo yani reerkiisu islaan dhib badan buu qabay marka way dhibi jirtay baa la yiri oo ku qayrin jirtay isnada waa dul qaadan jiray oo reerka caruur waxbaa ka dhaxayso oo dul qaadan jiray marka dulqaadkiisii iyo xikmadiisii iyo maaragtay sawirkiisii wax u qaadatay inuu doqon yahay maalinta dambe waxay ugu timi meel gar lagu hayo nimo odayaala gar loo dhiibay garta goynaya meeshii bay soo martay waxay tiri ma soo fiiri garta la goynaya mise odageeda baa ku jira hadlaayaba odageeda markuu guriga joogo dulli buu ekaa ilaa waa ku qaylan jirta maalin walbe isna waa dul qaadan jiray markaasay ag istaagtay waxay tiri hooga bay tiri maxaa rag la isaga dhigaya bay tiri oo garta loo goynaya soo ninkaad ogaa maahid marka nin meel ay ku xirtay buu ahaa si kastaba ha noqotay nabigu wuxuu yihi wahalaathatu min ashaqaawa saddex waxyaalood waxay ka mid yihiin ayaan darada almar'atu haweentii taraahaa fatusuu'uka intaad aragto ku xumaynaysa marka artaba naxaysaaba wa taxmilu lisaanaha calayka carabkeeda kugu xambaaraysaayo waxay doontay ku hadlaysaa wain gibta canha haddaad ka maqan tahayna lam ta'manha calaa nafsiha wa maalika nafteedii iyo maalkaagiba midna aamin maaha ma aamin gelinayso nabigu waxa uu ku tilmaamay ayaan darada ku tilmaamay ayaan darada ku tilmaamay marka ninkii haysatow arrinka isaga ahi nabigu wuxuu tilmaamay haweenta xun ee qofka haysta akhlaaq xumada ka mid tahay qofka ninka ragga ahi hadduu islaan akhlaaq xun haysto inuu furo baa ku waajiba weeyaan sidoo kale haween kaliya maahane gabadha muslimadda oo saalixadda ah oo ilaahay subxaana wa taala ku sugan nin faasiqi ma qabi karo looma goori karo ninka faasiq yahay faasiqnimada waxaa keenaysa khamriga hadduu cabo faasiq weeyaan waxyaalaha xaaraanta haddii qof la jaaro faasiq baa la yihahda marka gabar muslima ma qabi karo laga furaya banaanka laga marnaya saas iyaduna xaqeedii noqonaya weeyaan haddaba waxaa jirta saynu la soconno waxaa loo yaqaan guurka anigoo soo gabagabaynaya guurku sidiisaba qofka marna wuxuu ka noqdaa waajib buu ku noqdaa marna guurku marka nimanka laga hadlayo ragga qayb buu waajib ku yahay inay guursadaan qayb xaaraan buu ka yahay inay guursadaanba qaybna mubaax buu yahay waa isaga bannaan yahay qayb karaahiyu ka yahay inay guursadaan shanta axkaamta yani loo qaybiyo oo waajibkii iyo xaaraantii iyo mubaaxii iyo karaahiyadii saas oo kale bay mataqana ku soconaysaa weeyaan qofka ay waajib ku tahay inuu guursado ninka ay waajib ku tahay inuu guursado waxa weeyaan ninka awoodi leh xoolihii buu haystaa naftiisana wuxuu ga baqaya inuu sino ku dhaco haddaanu guursan naftiisa wuxuu ga baqayaa haddii aanu guursan inuu sino ku dhaco qofka isagaa deg deg waajib bay ugu tahay inuu guursado xoolihii buu haystaa xaas la-aanna waa yahay inuu xaaraan ku dhaco ku baqaya qofka waajib bay ku tahay nabigu wuxuu leeyahay yaa macshara shabaab waa dadka da-da yarow man istataaca minkum ulbaa'ah qofkii idinkeeni ka midoo awooda marka la leeyahay baa la leeyahayna waxaa laga wadaa yani waa jimaaci baa lagu macneeyey yani galmadii samayn kara qofkii galma samayn karan waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey gabadha mar nikaaxa iyo arooska iyo guriga waxaas maalkii qofkii haya waa lagu macneeyey man istataaca minkum ulba'a qofkii inuu guursado awoodow falyatazawaj ha guursado fa inahu agadu lilbasari guurkaas baa aragga u laabid badan qofka hadduu guursado araggiis baa laabanaya yani ma fiirinayo meel badan ma fiirfiirinayo wa axsanu lilfarji farjigna saasa u habboonaan badan oo yani u dhowrsanaan badan farjiguna waa xubin taranka weeyaan waman lam yastadic qofkaan awoodin yani guur awoodin oo lacagtii aan haysan ama maaragtay jamaaca awoodin facalayhi bisawm qofka isaga waxaa dushiisa waajib ku inuu soomo fa ina lahu wijaa dhufaan buu noqonaya dhufaan soonka dhufaamaya haddii laakiin qofka uusan maal haysan inay dhowrsaa la doonaya haddii aanu awoodi lahayn inay dhowrsaa la doonaya qur-aanku wuxuu leeyahy waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugnihum allahu min fadlih ha dhowrsado qofkii aan awoodin nikaax guur awoodin ha dhowrsado ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ka siinayo waa la ammaanay marka qofka isaga ahi waxaa la soo jeediyay qofkaas inuu waajib ku noqonayso qofka hadduu xoola haysto sinan isaga baqaayo waajib bay ku noqonaysaa inuu la yimaado weliba inuu guur ka raadsado waa khasab weeyaan nabigu wuxuu leeyahy tazawajuu alwaluud alwuduud fa inii mukaahiru bikum alumam war waxaad guursataan alwaluud alwaduud alwaluud gabadha yani dhalmada badan guursada alwaduud ninkeedan isjeclaysiinaysa guursada fa inii mukaahiru bikum waxaa idinku faanaya maalinta qiyaamaha ummadaha kale
marka nin baa rabay gabadh inuu guursado nabiguna wuxuu leeyahay alwaluud guursada yani dhalmada badan guursada haddii gabadh inaan la guursanaya see lagu garanaya marka maadaama nabigu leeyahay tasawaju lwuluuda gabadha ilmo dhalka badan guursada oo inan la guursanayo see lagu garanaya gabadhaan ina dhalayso ilmo badan dhalayso ilmo badan in dhalayso see lagu garanaya waxaa lagu garanaya culimadu leeyihin gabadha waxaa la eegayaa reerkeeda eedooyinkeeda iyo habareed baa la eegayaa hadday yihiin dad yani dhalmo badan hadday yihiin gabadhuna waa dhalmo badan tahay marka saasaa lagu garanaya weeyaan marka qofka saynu sheegnay waajib bay ku noqonaysaa hadduu xooli haysto oo sina isaga baqaayo xaaraanna waxay ka noqonaysaa qofka aan awoodin alwad'i walinfaaq physically and financially qofkaan u awoodin galmadina ma awoodo oo gabadha uma galmoon karo masruufna ma bixin karo labada haddii uusan qofku awood u lahayn qofka inuu guursada xaaraan bay ku noqonaysaa gabdhaha reerood yaanu lugooynin qofka isaga gabdhaha reerood yaanu lugooynin qofka isaga looma banaana qofka isaga inuu martaqaanaya markaas kala guursado ma banaana marka in la kala ogaado fiican tahay waana laga maarmaan weeyaan in la kala ogaado laga maarmaan waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nagu baraarujinayo guurka iyo inaan guurka laga tagin qofkii awoodaa inuu guur la yimaado waxaa nagu baraarujinaya cabdullahi bni cabaas baa wuxuu leeyahay ana rajulan shaka ila rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam alcuzuuba nin baa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga dacwooday doobnimada haysa doobnima haysa maalkina ma hayso laakiin dee shahwadii wixii ba haya faqaala markaasuu wuxuu yidhi alaa akhtasi miyaan rasuulka ilahi maan isdhufaamo ma isdhufaama xiniyaha ma iska bixiya waa taqaan geela marka awrta la dhufaamayo iyo wananka iyo marka la dhufaamayo orgeedayo la dhufaamayo ama la tumaayo wax kale ma ahan koran buu noqonaya hadha wax ma dhalaayo waxna ma galmoonayo weyaan shahwadii baa ka baxaysa marka wuxuu yidhi sida xoolaha loo galo anagu xiniyaha ma iska bixina faqaala nabigu wuxuu yidhi sal alay wasalam laysa lana man khasa aw ikhtasa yani annaga naga mid maha qofka arrinkaas sameeya sacad ibn waqaasna watuu lahaa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa cuثmaan ibn madcuun nabigu wuxuu weydiisay tabatul inuu isdhufaamo marka nabiga calayhi salatu wasalam waa u diiday isma dhufaami kartid buu yidhi walow adina lahu lakhtasaynaa buu yidhi sacd ibn waqaas hadduu nabiga calayhi salaatu wasalaam u idmi lahaa inuu xiniyaha iska bixiyo cuثmaan ibn madcuun inuu xiniyaha iska bixiyo hadduu u idmi lahaa lakhtasayna annaguna waa isdhufaan lahay lianna maxaa yeele sacd ibn waqaas waa ragga lagu yaqaano jihaadka weeyaan dagaal bay ku jiraan maalmay maqan yihiin mudday maqan yihin dagaal ku jiraan haasna ma haystaan marka waxay nin walba nadiisa gashay bal haddii la isdhufaamuhu shahwadan isaga degto waxaan kusoo gabagabaynaya culimmadu waxay yidhaahdaan sida maaragtay ibnu taymiya iyo raximah llahu tacaala waxay tilmaamaan waxay yidhahdeen qofka hadday isugu timaado xajkii xajku aadi lahaa iyo guur baa isugu yimi xajku aadi lahaa iyo guur baa isugu yimi guurkan aad buu ugu baahan yahay sina inuu ku dhaco ka baqaya inuu guurka hormariyo baa waajib ah inuu guurka hormariyo oo lacagtu xajka ku aadayo oo ku guursado baa waajib ku ah soo maartaan marka in halkaas ayaa waxaa la gaarsiiyey guurka insha allahu tacala xalqadan taa ka dambayso waxaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala doonista ama shukaansiga waxa loo yaqaan cidda la doonayo iyo sida loo doonayo iyo gabadha la doonayo inta laga arkayo iyo ma banaanta gabadha in lasoo fiiriyo waxyaalahaas baa insha allahu tacala fadhiga wixii kaga hadli doonaa intaasaan kusoo gabagabeynayaa wallahu subxaanahu wa tacala aclى waclam wjazakum allah khayr wasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatu إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا